gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland iyo ku-xigeenada golaha xubnaha golayaasha Puntland ee wasiirada iyo wakiilada iyo garsoorka golaha isimada iyo dhaqanka martisharafta xubnaha dowladaha ka ah dowladda federaalka qonsuliyadda dowladda Ethiopia haweenka dhalinyarada ciidamada saxaafadda iyo dhammaan inta halka fadhida dhammaantiin hambalyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan marka hore u hambalyeynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee isbuucii hadda la soo dhaafay xorriyadda heshay ee 26 Juun 27 Juun iyo 1 July markii ugu horeysay oo calan uu babado calanka buluugan buu ahaa Hargeysa cidii wixii laga taagay dadkii ka taagayna goob joog bay ahaayeen garaad Cabdullaahi Alciid iyo boqor Cabdullaahi baa ka mid ah waxaan caalamka iyo cid walba u sheegaynaa calanka la taagayna buluug buu ahaa dadkii taagayna weli waa joogaan waa ilaalinayaan calan la noqday iyo cid la noqotayna ma jirto ciddii wax tabanaysa oo waxaa wax ka duwan ka hadli karta in lala wada hadlo oo la isqanciyo ummadda Soomaaliyeed waa inay u diyaar garoodaan dalkan taariikh buu soo maray gumayste kala qaybsan buu soo maray wixii halgan ahaa ee soo maray markhaantiyadiisii baa jooga anigu hore uma ogeyn laakiin garaadka sayid maxamed baaba awoowo ahaa weli warka waa nool yahay sayid maxamed cabdulla xasan ma dhiman marka waxaan u sheegaynaa caalamka dadkii xorriyaddan keena weli waa taageen waan ilaalinayaa runtii hambalyadaas waxaan si gaar ah ummadda Soomaaliyeed ama jamhuuriyadda Soomaaliyeed kadib waxaan u maraynaa halka hambalyo jamhuuriyadda Djibouti ee walaalaheena xorriyadii ay qaadatay iyadana 27 Juun oo runtii ah maalin iyadana inaan farxadda la wadaagna ah waana hambalyaan u diray waxaan runtii halka ku soo talagalay khudbad dheer laakiin khudbadihii faraha badnaa ee quruxda badnaa baa iga laastay wixii aan oran lahaa xaqiiqadii waa laga warramay Soomaaliya waxay soo marteen waa la sheegay meesha ay ku socoto iyo daawadeedana waa la runtii dalkan midnimo u baahan yahay dalkan garnaqsi buu u baahan yahay dadkan dood furan buu u baahan yahay dalkan dulqaad iyo isdhegaysi buu u baahan yahay dadkiisuna waxaa la rabaa inay isu dhaganuglaadaan wixii la soo maray in lagu noqdo nooc waalida ka mid ay waxaan rajaynayaa wixii khaladaada la soo maray inaan dib loogu naqan shalay waa shalay maanta iyo berri aan ka talino waxaan rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed in ay si wanaagsan uga shaqayso dawladnimo waarta waxa ay ku waari kartaa waa nidaam federaal ah oo saldhigiisu adag yahay oo dadkiisu ay ogol yihiin waxaan ku baaqayaa dib u eegista dastuurka ee mashruuca furan noqotay oo aan dib loo eegay mar walba la leeyahay dib baa loo eegayaa wax dib u eega lama arag waxaan rabaa si dhab ah in dib loogu eego oo hore looga gudbo wax kasta oo dood ku jirto oo hadal ku jirto shacabka Puntland waxay diyaar u yihiin inay ka garnaqsadaan oo hadaa hadii loogu garaab waayay ay wax ka laqaan si hore loogu socdo laakiin hadaaba doodii la furay oo dadku is dhageysanay oo ana iri la oranaya halkaas dadkan horena uma aqbalin haddana aqbali maayaan jiilka halka jooga waa dadkii ku abtirsanayay halyeeyadii caalamkii gumaysigu u soo aaday uu kari waayay waxaad ogtihiin
boqor cismaan baddaa laga soo weeraro madaafiic lagala dhacay sayid maxamed cabdulla xasan cirkaa laga weeraro diyaarado lala dhacay suldaan maxamuud cali shire exile haddaa dadku barteen masaafurs baa la geeyey intaasba waxaa la diideen qoorta aan ku qabanno biyaha cabba ma ogolaanayaan dadkan waxay rabaan wada hadal ismaqal iyo inay kaalintooda qaataan waxay diyaar u yihiin dowladda Soomaaliyeed in ay dadka ay kala dhaxayso ay la wada hadlaan hadday tahay waqooyi iyo hadday tahay koonfur iyo galbeed iyo hadday tahay bari intaba cid kasta oo diyaar waa in la hadlo diyaar baan u nahay in la hadlo waxaan ilaahay uga rajaynayaa ummadda Soomaaliyeed dowlad midnimo leh markaan saan leeyahay goodin ma aha markaan saan leeyahay ma aha inaan leenahay tanaasuli mayno markaan saan leeyahay waxa weeye daawaan wadnaa diyaar baan u nahay dowlad Soomaaliyeed diyaar baan u nahay inaan kaalinteena ka qaadano waxaan marqaanti ka tihiin dowladda Puntland tabarteedii ciidankeedii hantideedii inay diyaar ula noqoto in magaala madaxda Muqdisho calankeedii laga dul farfariyo madaxtooyadii Soomaaliya oo ilaa maanta shaqeynaysa aamino oo wasiiradaas ka mid ahayd xildhibaanadaas ka mid ahayd runtii aad baan uga mahadcelinayaa inay maanta joogto waxay ahayd xildhibaanadii Inbigaafi iyo dowladdii Cabdullaahi Yuusuf ayay ka tirsanayd wasiirad ka ahayd weliba halgan dheer ay ku lahayd waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeed inay noqdaan dad qura oo meel u wada socda waxaan madaxda Soomaaliyeed u horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo madaxda maamulada dowladaha xubnaha ka ah dhamaantood halka uga diraya hambalyo iyo bogaadin waxaan ugu baaqayaa midnimada in laga wada shaqeeyo waxaan ugu baaqayaa sanadka haray intuu 60 ka buuxsamayo dowladda Soomaaliya meel wada socotay laga wada shaqeeyo waana rajaynayaa ilaahay idinkiis inaan 60 ka halka u dhaafin annagoo weli kala maqan ama wax kala tabanayna waxaan ku kalsoonahay maalmaha soo socda maamulada Galmudug iyo Jubbaland oo doorashooyin ku soo fool leeyihiin in ay Puntland wax ka bartaan xoog wax lagu ma kala qaado in ay si wanaagsan tartan xalaal iyo xor ah oo u dhaxmaro waxaan rajaynayaa cidii soo baxdana bulshadaas iyo adduunku iyo dadku inay la shaqeeyaan waxaan aad u rajaynayaa dowladda federaalka inay aad uga fiirsato in magacii xumaa ee meel ka raacay in dib dib u raacin oo ay meel ka istaagto dhexdhexaada maxaa yeelay dalkan waad mahadsantahay waxaan rajaynayaa ilaahay idinkiis kuwii istaageera oo toosay inuu ilaahay naga dhigo waxaan aad u rajo weynahay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad ku filan dalkooda inay maamushaan danahooda ay qabsadaan wixii tagayna ay dib u milacsadaan oo aysan dib u go'an waxaan rajaynayaa annagoo isku duuban mid yar iyo mid weyn madax iyo shacabba inaan u istaagno inaan midnimadeena ka shaqeyno nabadgelyada ka shaqeyno Soomaalinimada ka shaqeyno federaalkana aan adkayno kaas ayaa saldhig u ah maxaa yeelay waan aragnay wanaagiis waxaan maanta harsanayno nabadda ah maamul baa lagu gaaray haddaan maamul jiri lahayn quruxda maanta aan haysanno ma haysaneen waxaan rajaynayaa isagana in lagu fara adeego waxaan cadaynaynaa dhammaan shacab iyo dowladba inaan diyaar u nahay kaalinta nagaga aadan dib u dhiska iyo horumarinta dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed inaan mar walba u taagannahay annagoo oran dib u minacsaneyn waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed inay iscafiyaan
inay gacmaha iswada qabsadaan inay waji cusub ay u furaan Soomaali inaan la xafladayn oo kaliya calanku abaalkiisu ma aha habeenkii la saaray kaliya in loo xafladeeyo calanku abaalkiisu waxa weeye in la ilaaliyo xuduudihiisa la ilaaliyo sharcigiisa la dhowro kala dambeyntiisa la ilaaliyo dadkiisa wanaagiisa laga shaqeeyo waxaasina waxay u baahan yihiin in loo huro waqti iyo maskax iyo maal waxaan runtii maanta waa maalin farxaladeed waxaan la wadaagaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed guud iyo dibadba joogta usbuuca xorriyadda waxaan rajaynaynaa isbuucan inuu noqdo usbuuc khayr qaba oo runtii ummadda qulubtooda isku soo jeediya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته